barnaamijkeena waxaan qaadan doonaa bows waan isku soo noqon doonaa mubaarak qor baxay ayaa weli inoo dhiman iyo qosol badan marka waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo maama Sacdiyo Maxamed Xuseen Sacdiyo Soomaali oo ayadana ah fanaanad Soomaaliyeed fanaanad qaran wixii barnaamijka ayadana ugu tala gashay dabcan qosol badan malaha ayadana waan ka heli doonaa soo dhawo maama Sacdiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محن سلام يا مرتضى شرفت لنا وقت متستوقع وقرياشة وضد التورطة ما شاء الله تبارك الله وضد بدي مهم كأها قوضة هردي وحن ليه سلق النبي محمد يسورة ده قرآن لينك صوت كي سلقوا قاعدة سلوك مقالو ليدين كل سنة يوفدقوا سيداتيين تا حاجة ما كان أقبحه وحالة تاعتي dhinacan iyo waxa laga hadlayaa hadda Soomaaliga nin walba sidoo uga hadlo iyo dhanka bay dadka afka luuqadaas ku hadla inay luuqadii saxda ahay tahay qofka markuu maqan yahay waxay ku mahmaahan waxay tahan korjara kaayalan dhike ninka maqan kayd baa loo dhigaa kooyi la kalaan kale waa la salaamaa markuu ku yimaadan qofina walkaaliya baa yiraahdaa marka mahmahaas cajiibka ahaan anaga leenahay markaan dhinacaas uga baxo sheeko yar oo aniga ku tala galay aniga abwaan miisidiin oo kale ma sha Allah sidoo uu sheegay abwaanka waxaan leeyahay qor u baxan leeyahay aniga sidii abwaan miihi laakiin fanaanad qaran ayaan ahay sidoo idin ku sheegay oo markaan isaragnay oo hadda ku kulan xaafadda Michigan sheekaysan waa isgaranay asigana wuu gartay marka aniga sheeko yar ayaan rabaa inaan ka sheekeeyo hadii Ilaahay yiraahdo marka waxyaabaha yacni dhaco oo dhan oo yacni ka dhaco qurbooyinka ayaan rabaa inaan ka hadlo hooyana wax badan aad ka hadasheen yacni quraanka waa ka hadlay oo Ilaahay uu ku sheegay quraankiisana uu ku sheegay hooyada qiimaha ay leedahay waa iska jiraan herdiye badan inay iska dhacaan laakiin waxaan dhihi lahaa insha Allah Ilaahay idankiisa kuwa iskaba oo iskaashada Allah naga dhigo Ilaahay tawfiiqdana hana waafajiyo ummadeena Allah isku soo arooriyo qoysaska burburaya Ilaahay udubka ha adkeeyo Ilaahay idankiisa intaasan yani Ilaahay ka baryaaya aabayaashana in yani la wada aayama fiicno dadka kulli ma wada haleysno barba fiican barba xun haddana dhibaatada Ilaahay naga bixiyaan dhihi kara insha Allah Ilaahay idankiisa bashiirow hooyo bashiirow hooyo mama كاري هذا هاي كاري بريان وابو كفهم لا هني كمان هاي بدويناتي ما شاء الله بريان هذا بعد يكون بجنيسي الصومالي دك ما ودي قانا هذا يا غير فهم يدك واوي هاي بريان هذا بعد بدي وكفهم لا هني هذا الله راح حكم الله سوماليا محاوي سوماليا محل لها سوماليا محل لهم بدلها هاي هاي ما كل كانت لها إيش سوماليا مالك كتالو إياه مالك كتير تنمو إيش ما كتالو أمريكا ما كتالو هاي أنا وطن كان هدان فوق داري أو كبرتي جات كان جذورنا عند ولا توا حد ليس وطن كان رسمي إنه ماشي هاي أنت ثلاثة ما أكيد ماشي أنا أمني ماشي أنا أقول شيء ماشي أنا وحكرت من الصومالي وقريك واسعا واقص ومخلصينه وحيالها دعنا وايد هايو وحمكون شيئا أنا وطن لنا هاي غنية ما شاء الله إلهي نبرك أيام لنا هاي صوماليا اللي ده وطن كني حتى حارد حل كان مريسو هاي صوماليا إن شاء الله ينتقل هدي له هذا محاكا قبتها هاي ما كتبه وسؤال ما طلع تعمل لي هاي وفرنسا أنا ضلت عن ضلت هنا هذا وسؤال وحي أنا صابتين أنا وحوق ترى أنا أختار ما صابتين أختار من أو كتبه ضلت وحاكم الله لو الحنوسين ضلت كافر كيف إن شاء الله وابحنا إلى الكودة حتى لقد الأول تلينا أن يويل كيا وابحنا هاي إن شاء الله وأن تجينا وابصعنا Soomaaliya هذا ودن كأننا Soomaaliya صارته أول يوم قبل Soomaaliya كل صدرة وكا السلام عليكم سعدي Soomaali يولي ويلكري أدي هذا يوم هتسيني مركز الله أول كان بوس كفاية أنا عبدونا كبعدين ونسكسر نقول دونا أنا كيولي بقى قارب بحق ويولي بوس اللي وجرا وما سنتين أدي هذا يدوم سنتين سيد قروح ده بدن برنامج كذا نقدر قاعدتين قلبتها
برنامج كقبيل سيدنا بايان سو قارنا إن كستو عن سلايا إنتي وقصل كبدنيت بانو هرتي waxaan rabaa inaan in yar oo gabagaba ah aan ku soo celiyo saddexdii qoraa ee waliba abwaan ee Stockholm inooga yimid marka hore waxaan ku bilaabi doonaa Cabdi Bashiir way ku xigsan doonaan Sayid iyo waliba Dalmar Cabdi Bashiir baan markaa mikrofon ku dhiibaya isaga marka ay noonaay جزاك الله خير marka ugu horreysay waan ku soo laabtay hadalkii aan markii hore dhaweytaan bilaabo cabaanka yar tagay miyay jiraan dad warqado yar loo qeyriyay markii ugu dhaweytay yaa warqadaha haya yaa okay yaa maxaad haystaa adigu caqiidada haysta oo midna barimisa okay waqtar maxaad haystaa adigu ظاهرينتا imisa بقول لك كل boqol iyo koob iyo lixdan macnaha waxaan doonaya inaan idin fahansiiyo ya maxaad boqol aqoonsta mid cadidada okay waan eegnaa marka insha allah macnaha buugagtan oo kale su-aalaha ku jira su-aasha 64 ee ku taab kitaabka caqiidada islaamka su-aashaas waxay leedahay sheeg waxyaalo hal ama laba inta doona ha noqdaan sheeg waxyaalo malaa'igta iyo jinku iskaga mid yihiin dadkuna kaga duwan yahay arkaan iimaanka ku jiraa arkaan iimaanka waxa kamid ah tumida billahi wa malaa'ikatihi baa marka soo ma marka malaa'igta marka la marayo dabcan in laga fahmo wuxuu ku leeyahay su-aashan sheeg wax malaa'igta iyo jinku iskaga mid yihiin dadkuna kaga duwan yahay wax iyo waxyaalo ay noqon kartaa laba meelahaas dadkaa kaga duwan maya qof maxamed ninka haysta ملائكة يتينكا waxay iskaga mid yihiin dadkuna kaga duwan yahay jinka iyo malaa'igta iyo insigu waa saddex makhluuq oo ilaahay qur-aanku sheegay soo ma arkaan iimaankana waxaa ka mid ah an tumina billaahi wa malaa'ikatihi in malaa'igta la rumeeyo dabcan malaa'igta in la fahmo guud ahaan way rumaynay laakiin sifooyinna way leeniye tilmaama haddii lagu weydiiyo malaa'igta iyo jinku waxay iskaga mid yihiin dadkana kaga duwan yihiin waxay ka duwan yihiin waxaan u arkaa ninka koowaad inay tahay dadku jurmi bay leeyihiin oo aragtida ma aragno inagu waa qayb bay inoo yihiin malaa'igta iyo waynu aaminsannahay marka taa labadooda waa isaga keenmin sidaynu malaa'igta u aaminsannahay inay makhluuq ilaahay leeyahay u jira yahay iynu jinkana u aaminsannahay inuu makhluuq ilaahay leeyahay jira inagoo labada midna arag macnaha jinki waad sax labadaas dadka inagu wayna arki karaan laakiin inagu iyaga ma arki karno jurmi sax wey wax kale bini aadamka waxaa laga abuuray dhoobo sida laynoo sheegay oo diintu inoo sheegtay laakiin iyaga wax kaloo ka duwan yaa laga abuuray dabkaa la yidhahdaa جزاك الله خير كل فيلم طبعا سؤال آخر أقول هذا الدهنا هذا الواحد يشكي ملاك تستجمد هي ده كان كده وين إن الله عارف كريم إن هو إن الله عارف كريم لكن لو بده وين عارف كرام سد عادي مثل أول شيء كرام حكم ده شكي ملاك توحي مقال كود هو كيسين كرام نولك كرام لكن لو خالص كمان بيجي كمان كرام ما عنده سوق واتوصل يا هيا كلا سؤال كلا عقيدة يا وحكاية اوكي سايرة دي هيا مقعول فيها هيا وهي مستنى نمبر كده نمبر 6 لحظة يا فريان يا او استاهر انت لحظة يا فرساش الواحد اللي هذا هاي هذا في رسم السنة ايجا كوركيسة من النجاس بقى هذه لطاب من النجاس صور هذا ايجا كوركيسة لطاب ايجا صح مركب عن قصة قال الناس ما قويين طبعا لأنه بيدو شيء صح ايجا كوركيسة هذا طاب تسلوا طبعا معاه النجاس دي اصلا واحد اللي يقول لي والله نظيفين يا دوشر ولا ما يروح معي